Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Cashirkan waxaan ku baranaynaa waxaa loo yaqaano testicular torsion ama isku wareegshada ama maroojinta oo xaniyaha, kaasoo marka oo ah surgical emergency waxa loo yaqaano, ama xaalad u baahan qaliin degdeg ah qofka in lagu sameeyo. Waxa keenana waxay tahay in oo waxyaalaha oo dhiiga keena ama tubooyinka oo ka qaada semenka xaniyaha iyo artery oo dhiiga keena iyo xididyada oo dhiiga ka qaada oo loo yaqaano tympaniform plexus ama veins inay isku wareegsadaan sida xarig oo kale iskugu duuduubmaan, taasoo keenta in dhiigii uu imaan waayo xaniyaha. Waxay veins ahaana drainage lagu sameyn waayo. Sababtana waxay tahay xididyaalkaasoo hadda aan arkayno videohan oo markuu bilaabanayo oo ayagoo tootoosan oo straight ah, kadibna ay dhacdo inay isku laalaabtaan, isku wareegsadaan, kaasoo keenta marka in oo dhiiggii uu socon waayo oo dareerihii uu noqdo meel uu soo gaari waayo. Waxay dareer hore u joogeen uu gadaal u laaban waayo si oo filtration loogu sameeyo oo gadaal loogu soo celiyo, oxygenation loogu soo sameeyo. Arrintan marka waxay keentaa inay dhimato xaniyaha, waana xaalad aad iyo aad ugu badan dadka da-dood ay yartahay. Ilmaha yararka oo dhasha xataa waa ku dhici kartaa, laakiin tan ugu badan ayaa waxay tahay ciyaalka da-dood ay u dhexayso 10 sano ilaa ragga ilaa 40 sano ka yar. Marka qof walba oo rag ah oo 40 sano ka yar haddii xanuun lagu soo boodo oo hal ka mid ah xaniyaha oo xanuun loogu soo boodo, waxay tahay in oo qofkaas uu bannaan karo qaliin wax ka yar 6 saac ama 4 saac waqtigii xanuunku kusoo booday. Haddii kale waxaa dhimanaysa mid ka mid ah xaniyaha oo xanuunku kusoo booday, sababtoo ah waxaa haysataa waqti aad iyo aad u yar. Haddii 6 sac la dhaafo waxaa yaraana badbaadinta la badbaadin karo. Haddii 12 sac la gaarane boqolkiiba 50 waxay u badan tahay inay dhimato, ama xitaa haddii qaliin lagu sameeyo in oo muddo kadib, bilooyin ama sanooyin kadib, inay sameyso wax loo yaqaan atrophy oo ah inay yaraato oo wax dhinta uu noqdo, sida geed caleentiisa oo dhintay oo kale. Marka waxaan ku baran doonaa definitionkiis waxa uu yahay, waxyaalaha risk factorka oo keena qofka xanuunkaas kusoo boodo, waxyaalaha lagu garto, iyo waxyaalaha oo muxuu ahaa surgical managementiga oo loogu sameeyo, iyo complicationka dhalan kara ayaan cashirkan ku baranaynaa hadduu alla idmo. Marka xaaladan oo loo yaqaano testicular torsion oo xaniyaha isku wareegsadaan, san hore usoo sheegnay waa surgical emergency, taasoo macnaheed ay tahay in ay tahay qaliin degdeg inuu u baahan yahay si loo wareejiyo ama loo furo dhiiga oo imaanayay dhiiga keenaya macnaha xaniyaha, si loo badbaadiyo. Haddii aan la badbaadin waxaa dhacaysa inay dhimato oo qofkii dhibaata ay gaarsiin karto fertilitygiisa, ama in oo dhalmadiisa ay dhibaato gaarsiin karto. daada marka ugu badan waxay tahay in oo daada ilmaha yararka oo dhasha xataa ay saameyn karto, ama ciyaalka xataa caloosha ku jira ay saameyn karto. Sidoo kale waxay aad u saameysaa ciyaalka da-dood ay u dhexayso 10 sano ilaa ragga 40 sano ka yar. Soo marka qof walba oo rag ah oo 40 sano ka yar, daada ugu badan ay saameysa waxay tahay 14 jir, 15 jir, 19 jir, 20 jir. waa kuwa ugu badan oo cisbitaalka imaada ayagoo xanuunka sheeganaya. Badanaan macnaha waxaa ay ka sheegtaan banooni aan cayaarahay ayaa la iga dhuftay, ama baaskeel ayaa saarnaa, ayaa jukira iga soo gaartay, ama xanuun ayaa marmar ii imaada marna idaaya, marna ii imaada marna idaaya. Taas macnaheedu waxay tahay marka oon ay sameynayso ay marna isku wareegsamayso marna ay kala furmayso. Kaas marka waa digniin oo sheegaya qofkaas inuu halis ugu jiro in oo uu xirmo ama isku wareegsado ama isku maroojiyo oo qaliin u bahnaanayo oo degdeg ah. Calaamadaha lagu gartana waxay tahay xanuun marka oo degdeg qofkii kusoo booda oo hal gees dhah, macnaha labada xaniyo midda oo midig iyo midda bidix hal meel, macnaha mid ka mid ayaa lagu soo boodaya xanuun oo degdeg ah oo mararka qaar qofku ka cabanayo lalabo iyo matag. Sidoo kale marka waxaa muhiim ah in oo mararka qaar xanuunka kusoo boodayo uusan ahayn xanuun daran. Haddii book textbook aa fiirisid, macnaha xanuunkan oo testicular torsion waxaa lagu sheegaa inuu yahay xanuun daran. Mararka qaar waa xanuun oo mild ah, macnaha xanuun oo aan zaad u darnayn, oo qofka xanuun kale oo haya ama labada aysan haynin, kaasoo marka oo sometimes ay adag tahay in la sheegi karo waxaan inuu yahay infection sida oo epididyma oo kitis oo kale, ama inuu testicular torsion uu yahay. Muhiimadda waxay tahay haddii qofka shaki uu ku jiro in waxaan torsion uu yahay, inuusan ahayn in straight away qaliin lagu sameeyo si loo fiiriyo waxaan inuusan ahayn torsion. Examination haddii lagu sameeyo waxaa lagu sheegaa wax loo yaqaano high riding, ama kor inay usoo kacdo,
haddii oo geesaha qofka laga taabto macnaha waxaa loo yaqaana cremasteric reflex in oo kare usoo kacdo. Sidoo kalena in oo sida caadiga ah xaniiyada waxay u taalaa si oo geesgees ah, laakiin haddii si horizontal ah ay u taalo waxay tilmaamaysaa in oo torsion uu noqon karo. laakiin waxyaalahan oo examinationka oo dhan mararka qaar waxaa dhici karta in oo aysan kor aadin oo cremasteric reflex uu normal yahay oo like ama nooca uu yaalo scrotumka dhexdiisa, macna meeshan ku dhex jiro oo bagan oo scrotumka ku dhex jiro in oo normalkii uu yaalo, xanuunkan uusan darnayn. waxaas oo dhan markuu sheegayaan waxaan torsion inuu yahay in kala sababtoo ah waxaa lagu magacaabaa clinical diagnosis. Clinical diagnosis waxay tahay wax imagine ah ama dhiig oo qofka aad ka qaadi kartid oo diagnosiska oo kuu sheegaya ma ah. waa calaamadahaas qofka lagu gartay ama xanuunkaas kusoo booday inaa qaliin ku samaysid ma ahe, si kale oo lagu ogaan karo ma ahan. macna 100% direct inaa ogaatid waa in oo ku samaysa waxa loo yaqaano testicular exploration oo la furo scrotumka oo la fiiriyo inay wareegsatay in kale. ultrasound gaar ahaan Doppler ultrasound haddii lagu sameeyo wuxuu ku sheegaya in dhiiggii uu yaraaday, macna blood flow inuu yaraaday, kaasoo kuga caawinaya mararka qaar in oo torsion uu yahay waxaan 100%. laakiin mararka qaar waxaa dhici karta in oo Dopplerka xataa dhiig macna uu imaanayo, laakiin still macna you cannot rule it out. Rule out waxaa loo yaqaanaa inuusan 100% dhihi karin waxaan torsion ma ahan. macnaha waxaa laga yaaba waqti inaad ku dhumisid in ultrasound qofkii la saaro oo muxuu ahaa si aa u ogaatid waxaan torsion inuu yahay. laakiin ultrasound ku caawinayo xataa haddii normal uu yahay ultrasoundka still 100% sure ma aha inuusan ahayn torsion. marka haddii shaki uu ku jiro waxaan torsion inuu yahay waa in qalin lagu sameeyaa si loo fiiriyo inuusan ahayn testicular torsion. waxyaalaha marka oo haddii qalin lagu sameeyo marka waxaa dhacaysa in oo la wareejiyo, macnaha wuxuu isku wareejinaya sida xarig oo kale oo la tacan oo kale ay isku wareejinaya. waxaa lasoo furayaa si isku wareegsanaa qaabkii nooc caadiga ayaa laga dhigaya oo straight ah. kadibna waxaa lagu sameynaya waxa loo yaqaano orchidopexy oo macnihiisa ay tahay in oo lagu tolo geesaha oo scrotumka, macnaa meeshaas ku dhex jiro baagaas ayaa lagu tolaya. saddex meel ayaa laga gelinaya don oo fixin loogu sameynaya, macnaa in lagu dhejiyo. waa sida oo tenda oo kale oo la taagayo oo kale in lagu dhejiyo maqaarka hoose scrotumka iyo muxuu ahaa muruqan loo yaqaano dartos si uusan mar kale u wareegsanin. macnaha haddii hoos lagu dhejiyo taas waxay tahay inuusan wareegsan karin. haddii marka hal dhinac xanuunka uu kasoo booday, dhinaca kalena waa in fixin lagu sameeyaa si asagan uusan u wareegsanin, sababtoo ah 40% haddii oo hal mid ka mid ah ay wareegsato 40% tan kale waxay u badan tahay in mar uun ayadan ay wareegsan doonto. marka si taasaysan ugu dhacin oo looga hortago ayaa waxaa lagu sameeyaa in oo si ka hortag ah fixin loogu sameeyo oo muruqaas dartoska oo lagu dhejiyo. waxaa jira marka risk factor oo loo yaqaano Bell-Clapper deformity oo macnaha in oo waxaa jiro xoob ku duuban xaniinta oo loo yaqaano muxuu ahaa tunica vaginalis. marka xoobkaasoo ku wareegsan mararka qaar ayaa waxaa dhacda ilaa kor inuu tago, taasoo fududeysa in uu wareegsado. marka haddii Bell-Clapper deformity aad ku qortid Google Images waxaa arkaysaa waxa uu yahay macnihiisa Bell-Clapper deformity. taas marka haddii oo xubkaas ku dul wareegsan oo loo yaqaano tunica vaginalis ilaa kor u aadayo, qofkaas wuxuu u nugul yahay in oo ay wareegsato. saan hore usoo sheegnayna marka qofkaas wuxuu u baahan yahay qalin degdeg ah in lagu sameeyo 4 saac ilaa 6 saac gudihiisa oo laga dhiga nail by mouth waxaasoo cunin oo qalin loo diyaariyo, xanuun joojis la siiyo iyo daawooyinka madanka ka joojiya. haddii qofkaas qalin lagu sameeyo xanuun joojis in la siiyo oo qofkiina gashto waxyaalo loo yaqaan scrotal support, macnaa waxyaalahan oo briefka ah oo ragga ay xirtaan inuu gasho si oo support uu helo. marka differential diagnosiskana waxay tahay haddii infection qofka loogu shakisan yahay sida epididymocarditis oo kale oo ah infection oo ku dhaca epididymiska, macnaa xuubkan yar oo dusha ka saaran xaniinta oo kasoo qaada semenka, tubadaasoo dul wareegsan ayaa loo yaqaana epididymis. haddii marka infection uu ku dhaco testiska iyo epididymiska, calaamadaha kale oo lagu garta ayaa waxay tahay qofka in oo isku arka macnaha waxyaalaha loo yaqaano low urinary tract symptoms sida oo qofka in oo kaadida ay gubto oo kale ama in oo frequencygiisa uu bato. sidoo kale in qandha lagu arko oo infection tilmaamaysa.
mararka qaar waxaa dhici karta in hernia waxaan uu yahay oo wax ka mid ah bowelka uu kasoo dhex baxo abdomanka uu soo dhex galo, gaar ahaan indirect hernia oo ay soo dhex gasho muxuu ahaa meesha hoose scrotumka, ama haddii qofka oo uu galo accident trauma oo baaskiilka oo kale qofka wata ama qofka banooni cayaaraya oo kale wax loogu dhufto, oo mararka qaar xataa noqon kara testicular rupture, macnaa in oo uu furfurmo oo uu qarxo. marka haddii marka oo qofkii oo xanuunka kusoo booday oo qalin aan lagu sameynin, waxaa dhacaya in uu ku dhaco ischemia iyo necrosis, macnaa inay dhimato ayadoo dhimatay oo madoobaatay ayaa qalin lagu sameynaya oo lasoo goynaya. waxaa loo yaqaano macnaa waxaa loo yaqaano okido orchidectomy, oo ah in lasoo gooyo haddii ay dhimatay mid ka mid ah. haddii mararka qaarna dadka qaar ay ku dhacdo waxaa loo yaqaano torsion, oo macnaa marna ay isku wareegsato marna ay isfurto, waxaa qofkaas marka oo ku dhex kara ischemia isagana, macnaa oo ischemia oo ah dhiig inuu ku yaraado oo keeni karta in long term damage uu gaarsiiyo. waxaa loo yaqaana marka intermittent torsion. sidoo kale waxaa laga yaabaa in qofka oo fertilitygiisa ama dhowdii macnaa ilmo dhalitaankiisa dhaawac inay gaari karta, sababtoo ah qofku wuxuu leeyahay 2 xaniinyo, haddii hal xaniin laga gooyo oo ay dhimato, hal xaniin oo kale ayaa u haraya. waxaa kaloo muhiim ah marka in fixation lagu sameeyo labada gees. sidoo kale waxaa dhici karta haddii qofka oo qalin lagu sameynayo oo lasoo fiirinayo in ay wareegstay in kale, qofka in loogu digo in oo mararka qaar ay ku dhici karto waxaa loo yaqaana chronic pain, xanuun oo joogto ah oo xaniyaha ugu imaada oo aan la daaweyn karin, in macnaa ay noqon karto macnaa complication ama side effect oo qalinkaas oo lagu sameeyey, ama in oo xataa qofka uu ku dhici karo torsion inkastoo lagu sameeyey muxuu ahaa qalin. macnaa qalinka hadii lagu sameeyey ma aha 100% torsion inuusan kugu dhici karin, waxaa laga yaabaa in still uu kugu dhaco torsion adoo qalinka lagu sameeyey xataa. macnaha marka waxaa muhiim ah dadka in loogu digo in 100% uusan ahayn. qalinka hadii lagu sameeyana marka sida oo muxuu ahaa scrotumka wuxuu la ekyahay, macnaa uu ekyahay sida oo basasha oo kale, macnaa wuxuu leeyahay dhowr layeryaalkan tirada badan hadda sawirkan aan ku arkayno oo kalarayaal kala duwan wuxuu ku tilmaamaya haddii qofka surgeonka ah oo qalin uu ku sameynayo inta layer oo kor imaanaysa inta uusan gaarin muxuu ahaa testiska ama xaniinyada, kuwaasoo marka oo kale ah maqaarka kore oo ku dul wareegsan oo loo yaqaano marka skin. kadibna qofka wuxuu imaanayaa dartos muscle, macnaa muruqa loo yaqaano dartoska. haddana qofka wuxuu gaarayaa muxuu ahaa external somatic fascia, waxa macnaa xuubyaal waxaan dhan oo meeshan tirsan, macnaa xuubyaal oo u baahan tahay in la jeexo, haddana kan kale la jeexo, haddana kan kale la jeexo. haddana waxaa imaanaya cremastric muscle, haddana waxaa imaanaya internal somatic fascia, haddana waxaa imaanaya tunica vaginalis, haddana macnaa waxaa tegaysa testiska korkiisa oo asagana macnaa cad, macnaa ugu imaanaya haddii uu nool yahay oo gaduudan oo loo yaqaano tonica albuginia, oo ah xuub yar oo ku dul wareegsan muxuu ah xaniinyada dusheeda. so marka intaas leeyer ayay tahay anatomy ahaan qofka surgeonka inuu dhex maro inta uusan gaarin kor xaniinyadii. kadibna wuxuu qaadanayaa duntiisa ama vicro waxa loo yaqaano oo fixin ugu sameeya ama orchidopexy, 3 gees oo dartoska uu ku tolaya si mar kale aysan isku wareegsanin. so marka waxaan u maleynayaa in cashirkan waxun waa ka faa'iiday. marka ilaa inta cashirka dambe aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.